حسن الشيخ وكذاب واي. حسن الشيخ وانين أن إنما آخرية أدون منا أن تنكرهين الشيخ هي بين صاحب كيس كوباد هرينا إثيوبيان بيوهاين هادنا إثيوبيان بيويهين حسن الشيخ نكي يحيى هاي ولا دلي جري أو الشباب أي دلي جرين أو ريبورك سوماليا كقولي جري أو الشباب كأذيان إنه دين تمسيحية دين مسيحي قاطعي أو سوماليا أدلو ربينو نكال ربينو سوماليا مدحوينا كنقضر رجال بيتكو أي ديارين هي يدول لها دريسكا أو الشباب دلي جرتي أيوه وأها كحيجين هذا الشيخ هذا الشيخ لقوري جري ريبورت يدا CIA لقوري جري مركو NGO حسن الشيخ وحواي وبصاص واي دبل اجنسي وحلي هذا واي دولة الصومالية مجرته بصاصين بالله يسوي كان دولة الصومالية بصاصين بقول يكونتون دولة أقل شقيه أي دولة فدرال ككوبا أنت الوعدين كرا نينك هذا أميسون ما عنده تهضلي دولة فدرال كاكوت المامي وحباباي أو دنتي وحتى هالدستريك. السلام عليكم سو دوادا إدin lahaantiinba meel walba adduunka ka joogtiin waxa mar kale halkan stuudiyaha martima ugu ah injineer Idris ahna sarkaal Soomaaliyeed injineer markale soo dhaw injineer waxa soo cusboonaaday dagaalo fara badan madaxweynaha Soomaaliya dagaaladii waa ka tarbateen oo wuxuu u qeybtaansaday Ethiopia naga soo gaartay yiri duqeymihii ugu horeeyay Ethiopia waxay ka geysteen magaalada Jowhar oo wax yar u jirta Muqdisho diyaaradahaasna waxaa la xaqiijiyay inay ka soo kaceen deegaanka Soomaalida arrintaas ka waran. بسم الله الحمد لله رب العالمين بنا نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. runtii طبعا جوهر ما ينام دقيقين وحي دقيقين باديها يتولوين كجوهر الشباب جوغان جوهر واحد جوغو إذا بدأ الجنبي السيادة بالصوماليا وحلو دياريين إن إثيوبيا قبصت لعقاها فراها بضن باش عالم كويكو بحينيسو إذا مدى أفريكانكا Soomaaliya jooga caloosha shaqaystayaasha waxaasoo dhan waxaa waaye maadaama Soomaalida Ethiopia ay saska qabto Ethiopia ugu gol xaarahayaan marka Ethiopia Soomaaliya waxaa ka hor taagan al-shabaab waa hore Soomaaliya lagu kala tagi lahaa nimankan daba dhilifyada ah munaafiqiinta ah ee Soomaaliya lagu tilmaamay dowladda federaalka ah waxaa waa Ethiopian bay uurka ka yihiin way isdhiibeen waxayna qarka u saaran yihiin inay yiraahdaan Ethiopian baan anaga Soomaalinimadaba waan ka baxna marka sidaa darteed inuu Ethiopia u yeerto markuu nafku yaabo u yeeranayo marka hore wuxuu islahaa anaa kaaga filan al-shabaab kadibna si tartiib ah oo raganimo leh oo yaad u soo geli doontaa wadanka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud cadowga koowaad Soomaaliya wuxuu ku sheegay inay yihiin Ethiopia iyo dadka macnaha soo doonayaasha ah wuxuuna ka sheegay dabcan madaxtooyada masaajid ku yaal oo ka sheegay cadowga labaadna wuxuu yahay shabaab waaye hadda cadowgii koowaad oo Soomaaliya ayaa cadowgii labaad duqeynayo marka arrintaas ka waran marka. Xasan Sheekh waa kadaab waaye حسن الشيخ ومن أن إنما آخرية أدون منا أن تنكرهين الشيخ هي بين صاحب كيس كوباد هرينا إثيوبيان بيوهاين هادنا إثيوبيان بيويهين حسن الشيخ نكي يحيى هاي ولا دلي جري أو الشباب أي دلي جرين أو ريبورك سوماليا كقولي جري oo al-shabaab ku eedeeyeen inuu diinta masiixiga diin masiixi qaatay oo Soomaaliya aad loo rabay inuu Soomaaliya madaxweynaha ka noqdo reer galbeedku ay diyaarinayeen iyo dowladaha dariska oo al-shabaab dili jirtay ayuu wuxuu u ahaa
ku-xigeen xasan sheekh xasan sheekh xasan sheekh wuxuu qori jiray riboodyada CIA du qori jira markuu NGO-ga ahaa xasan sheekh waxa waaye waa basaas waaye double agency wax la yidhaahdo waaye dowlad soomaaliyeedna ma jirto basaasiin baa la isugu keenay dowladda soomaaliya basaasiin 150 dowladood u kala shaqeeyo ayaa dowladda federaalka ka kooban maxaa arrintaas lagu caddayn waxaa lagu caddayn karaa ninka hadda amisom maandhowta hadlay ee dowladda federaalka ku tilmaamay wax baaba'ay oo dhintay oo xataa hal district hal degmo oo mataqaanaa muqdisho aan xukumin ee corruptionka dilooday ee maafiyada uu ku tilmaamay ninka amisom u hadlayay asbuucan dhowaa ninka ku tilmaamay wuxuu yidhi ciidamada dowladda federaalka 6 bildiid bay ka kooban yihiin buu yidhi 6 gaas ay ka kooban yihiin buu yidhi 6daas gaas walbo dowladaha ajnabiga lacagtooda bixiyo imagine adi lacagtooda markay bixiyaanna lacagtooda ma helaane dhexda intercept buu yidhi dhexda laga afduubtay buu yidhi lacagtii laga qabsada mushaarka ciidanka garanaysa mushaarka ciidanka markii dhexda laga qabsaday xasan sheekh iyo gruubkiisa iyo mooryaantaas ayaa marka lacagtaas ku qaybsanaya waxa nairobi lagu dhisaya waay kadibna askartii wuxuu yidhi waxay baad iyo dil iyo kufsi iyo dhac u geysanayaan markii lacag la'aani ku dhacdo dadka shacabka ah baadi waxa ku weydiiyey marka wuxuu yidhi waxaa kaloo cajiib ahaa meelaha al-shabaab laga xoreeyey buu yidhi dadka shacabkoo degan waxayna dhahaan buu yidhi al-shabaab waad naga xorayseen laakiin kuwa ka daran ayaad noo keenteen ciidamada dowladda waa argagixiso waaye iyo macawisley argagixisada rasmiga ah ee kufsiga iyo dhaca iyo baadda iyo dilka iyo barakicinta ka samaynayo waa ciidamadan iyo macawisley waaye sababtoo mushaarkoodiina waxaa boobay oo dhacay burcadan dowladda federaalka sheeganaysa iyo maamul goboleedyada ayaa dhacay oo daara waaweyn ka jeexanayo nairobi oo ku taajiray ciidankin marka qoribuu wataa dadkiibuu ku dhaqaaqayaa marka ciidanki dadkiibuu dhacayaa dadkiibuu dilayaa dadkiibuu baadayaa ma garanaysaa see dowlad lagu noqonayaa marka dowladdu ma saasa dowladdu ma in ciidamo ajanabi ah waddanka la keeno caloosha u shaqaystayaal ah ciidanka dowladda ay tababaraan ay mataqaanaa mushaar siiyaan dowladaha ajanabi ah mushaarkoodii dhexda laga leexsado ciidamadii ay dadka dhacaan oo dilaan oo kufsadaan sidaas miyaa dowladnimo iyo la dagaalan argagixisada rasmiga waxaa weeye waa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waay argagixisada rasmiga ah ee soomaaliya ka jirta mar hadday dadka dilayaan oo dhacayaan oo kufsanayaan oo ayna cadaalad jirin oo meesha bayda weeya meesha maxkamadahooda maanta hadba ninkii lacag badan bay u xukumayaan markii lagaa xukumo haddana lacag kalaad bixinaysaa dhanka kalaa lagu xukumaya markaad isku wareertaad waxaad aadaysaa al-shabaab markaasaa cadaaladda helaysaa waa wax macruufa way okay marka madaxweynaha soomaaliya quus ayuu ka muujiyey dagaalka lagula jiro al-shabaab wuxuuna caddeeyey sida u wada jeedno in ciidanka soomaaliyeed iyo macawiisyada aysan ku xidhneen dagaalkaasi wuxuu u wacday etoobiya marka mis leedahay marka etoobiya way ka guulaysanaysaa shabaab waxaan rabaa inaan dib ku celiyo intaanan su-aashaan ka jawaabin waxaan rabaa inaan dib ku celiyo sababto ah waa laisweydiinaya dadka dhan waxay leeyihiin maadaama ciidanka soomaaliyeedba ay quus muujinayaan iyo madaxweynihii etoobiya maxay kusoo kordhin kartaa dagaalkan waxaan rabaa inaan dib ku celiyo soomaaliya waxaa la rabaa khariidada adduunka in laga tirtiro waxaa lagu salladay dagaal oogayaal markii dagaal oogayaashaas dadku burburaanna etoobiya inay tartiib u qabsataa la raba maxkamadihii baa yimid dagaal oogayaashu waxay u shaqaynayeen etoobiya iyo reer galbeedka ayay u shaqaynayeen si soomaaliya khariidada adduunka looga tirtiro maxkamadihii baa yimid shil baa dhacay
waa kuwii